assalaamu calaykum. waxaan ognahay in maalintii ay ka kooban tahay 24 saacadood oo keliya. wakhtigu waa wax dhammaad leh, adigu ayayna ku jirtaa hadba sida aad uga faa'iidaysan lahayd. haddii aad lumisid lacag, waxaa laga yaabaa inay ku soo marto fursad aad dib ugu heli kartid lacagtii kaa luntay. laakiin lama soo celin karo saacad khasaartay, ilaahow hal daqiiqaba ha ahaatee. inkastoo aanan saacad ku soo siyaadin karin maalinta. daawade, muuqaalkan waxa uu kaa caawinayaa sida aad faham buuxa ugu yeelan lahayd muhiimadda ay leedahay inaad maarayso wakhtiga, iyo sida loo maareeyo, iyo sida maaraynta wakhtiga ay kaaga caawin karto helidda wakhti dheeraad ah oo aad waxyaabo kale ku qabsato. maaraynta wakhtigana waxaa ka faa'iidaysan kara qof walboo inaga mid ah. muhiimadda wakhtiga iyo maarayntiisa waxay isugu soo shibanaysaa hadba sida uu wakhtiga khaas ahaan ama xirfad ahaan u sameeyo noloshaada. maaraynta wakhtigaaga waa habaynta maalintaada aad ku samaysid si aad sida ugu fiican ugu isticmaashid daqiiqad walbo. maarayn wakhti oo heer sare ah waxay kuu oggolaanaysaa sidaad isugu dheelitiri lahayd shaqadaada iyo noloshaada, gurigaaga iyo waxbarashadaadaba. natiijada ka dhalata wakhtiga oo aan la maaraynin waxaa ka mid ah inaad mar walba dhaafto wakhtiga kama dambaynta ah ee loogu talagalay inaad wax ku qabato iyo inaad la noolaato walwal dheeri ah. haddii aad horay ugu fashilantay maaraynta wakhtigaaga, weli waxaad haysataa wakhti aad wax ku qabsato. samayso wakhti kama dambays ah ee aad ku qabato shaqooyinka. baro sida shaqooyinka qaar dad loogu wakiishado. kala garo shaqooyin kale mudnaanta koowaad si aad wakhtigaaga ugu bixisid waxa kuugu qiimaha badan. haddaba waa maxay sababta ay ku anfacayso in aad maarayso wakhtigaaga? mar haddii aad taqaanid sida loo maareeyo wakhtiga, waxaad dareemaysaa faa'iidooyin badan oo kaaga imaanaya maaraynta wakhtiga, waxaana ka mid ah faa'iidooyinkaas. 1. inaad ku qabato hawl badan wakhti kooban. haddii aad leedahay xirfad wakhti maarayn ah, waxaad awood u yeelanaysaa inaad wakhti yar ku samaysid hawlo badan adoon ku bixin juhdi badan. inaad hawsha kuugu mudnaanta badan wakhti siisidna waxay fure u tahay qabashada arrimo badan. haddii aad heshid 1 saac oo dheeri ah oo aad ku qaban karto hawl wax soo saar ku leh, waxaad helaysaa 312 saacadood oo wax soo saar leh sanadkii. 2. shaqo dhammaystiran iyo nolol micno weyn kuu leh. wax ka niyad jab badan ma lahan haddii aad maalintii oo dhan tahay qof mashquulsan, haddana aadan ahayn qof wax soo saar leh. dareenka laga helo hawsha dhammaystiran waxay dhiirigelin kuu siinaysaa shaqada. marka aad gurigaaga joogtidna waxay kuu fududaynaysaa inaad nasato oo aad ku raaxaysato wakhtigaaga. haddii aad si hoose ula socotid sida aad wakhtigaaga u isticmaashid, waxaad helaysaa wakhti aad ku qabato waxyaabaha ay naftaada jeceshahay. 3. go'aan qaadasho la'aantaada oo yaraata. walwalka aad ka walwashid inaad dooratay doorasho wanaagsan iyo in kale ayaa ah arrin wakhti badan cunta. waa dabiici in go'aanada waaweyn ay qaataan wakhti, laakiin go'aanada yaryar aad qaadato maalin walbo ayaa sidoo kale kaa cuni kara wakhti badan. garashada waxa aad rabtid inaad samaysid waxay kuu badbaadin kartaa wakhti badan. inta aad maalin walba wakhti badan ku dhaygagi lahayd iyo waxa aad qaban lahayd, isku day inaad qorshe joogto ah samaysatid maalin walbo. 4. inaad si dhaqso ah ku gaartid hamigaaga. tusaale, dabcan hamigaaga waxaa ka mid ah inaad bilowdo nolol wanaag, laakiin waxaadan heli karin wakhti aad ku aadid jiimka. waxaa suurtagal ah inaad wakhtiga aad u baahan tahay aad haysatid, laakiin aadan arki karin. waxa keliya aadan u baahan tahayna waa inaad wakhtigaas heshid si aad u gaartid hamigaaga. 5. kalsoonidaada oo kor u kacda. maaraynta wakhtigaaga waa arrin kor u qaadi karta kalsoonidaada. waxaad awood u helaysaa inaad naftaada siiso daryeel. haddii aad isdaryeeshid, waxaad dareemaysaa ama u ekaanaysaa qof ay nolosha isugu duba dhacsan tahay. waxaad si joogto ah u helaysaa wax kiciya kalsoonidaada mar walbo aad dareentid in aad howl soo afjartay. 6. wakhti badan oo kuu soo hara si aad u samaysid waxyaabaha aad jeceshahay. haddii aad ka fakartid wakhtiga ay kugu qaadato inaad seexato, shaqayso, cuntayso, socoto iyo isnadiifiso, waxaa kuu soo haray 4 saacadood. maalin walba oo aad ku qaban kartid waxyaabaha aad jeceshahay. barashada maaraynta wakhtigaaga waxay kuu sahlaysaa inaad hesho fursad badan oo aad ugu shaqayn karto
kobacaaga shakhsi ahaaneed iyo inaad waqti la qaadato qoyskaaga iyo asxaabtaada. Waxaa laga yaabaa in ay maalintii ku sugayaan mashruuc, inaad cunugaaga geyso isbitaal ama dugsi, inaad shir la qaadato dad, inaad u soo adeegto gurigaaga. Haddaba daawade, waxaan haysanaa dhammaanteena waqti, balse ma haysanno waqti la lumiyo.